وانا ذلك وحوي إن بدنا كم وحوي سياسيين وحوي بالبانت أما هرتي هل كتشوفه إيه بس كمان يسوي وحوي بروح كلا هدي بدك تقولي هي ضمانتها هدي بدك تقولي حقوق حيني وما كيستوي لنا باش حقوق حيس يتم عنا وحوي وهرقلنا قلنا دارات بقى سود بدك يسوي بالبانتو وهي وخلقه هرقلنا وحوي وما فكرين إيه اللي هذا أون ده عرب marka anigu waxaan u arkaa hadii beedkeeda ku leeyahay in ninkaasi waxa uu tolkay raacay wixii kale la yiraahdaaba oo iskan hadal aan macna lahayn iyo maxay qoladeeda u noqon weyday waxaan si dagaalkaas waxa yeelan doonaa inuu ay dooq qaawi ama waxa uu hadii beedkeed ku leeyahay Soomaaliland qaawi magacu loo soo bixin doonaa inuu iska sugeyn marka labada beelood ku habsaday ku goobay walaala ayaa beelin waxa weeye maadaama 18 sano kursiga haysay qaybta tanaasulka iyo walaalnimada in la isu tanaasulaada had iyo jeer ay ilaaweenba oo had iyo jeer way naga badsadaan qoladaydan waxa weeye gaxaysan maanta meel ay halka u dhaafaan ayayba ay runtii markaad eegto marka waxa gobolada qoyi dadka digay kamid yihiin oo la digaan weligood maamulka ka dhamaan maayaan mid sii socdana laga waayi maayo laakiin taan ugu ma aqaan qalbiyada dadka shacabka ay dhulbaantay maanta ma hayno dadka guuro dhulma guuro kelmadda waxay ula jeedaan gobolada waqooyiga dhulbahanti kamid yihiin oo dhulku guuri maayo dhulku weligeed dhulka isugu ka yaala baa laga yaabaa in inta siyaasiga u jeedo Rahmaanir Rahiim Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo halkan oo ah hoteelka Daalo ee magaalada Burco aan kula yeelan doono ugaas Cabdiqaadir Xaaji Faarax Xaaji Cilmi oo kamid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland iyo sidoo kale aqoonyahanka ugaas Cabdiqaadir falanqeyno iyo waxa weeye waraysiyo kala duwan ayaan hore uga yeelanay ama aan ka qaaday oo kaga hadlayo xaaladaha amni siyaasadeed dhaqaalo iyo bulsho ee Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida iyo mandaqada Geeska Afrika ugaasku waa aqoonyahan ku takhasusay aqoonta kala duwan gaar ahaan xanaanada xoolaha maamulka iyo maareynta iyo cilmi baarista ugaas ku soo dhaweey waraysigan gaar ka ah ee TV-ga bulsho oo kula yeelan doono bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fahmiyay wad mahadsantahay adiga iyo bulsho TV iyo inta daawanaysa hadii ay yihiin bulshada reer Soomaaliland iyo walaalaheen kale ee Soomaaliyeedba aad baan idin soo dhaweeyaa waana ku mahadsantahay martiqaadka hada jeer aad igu martiqaado waxa weeye TV-giina ee aad waraysiyada aan bulshada wax ugu iftiiminayo aad hada jeer iga saacidaan waxa jirta shir nabadda ku saabsan oo laba beelood hawdka gobolka Togdheer wada daga dirir colaad ku dhaxmartay shirka maxaa ka soo baxay maxaad saad ka falaysaa shirkaasi uu jiray bariyahan uu socday adigu weli natiijo lagama gaarin oo taagan laakiin insha Allah waxaan filaynaa waxa weeye inuu sida wanaagsan ku dhamaado beelahan meesha wada degaana waa isku dhoon ka taqaanaa geedkeedu inta isku baxa marka hore geedka waxa ahayd beeshan walaalaan hayna waxa weeye lagu soo beertay dabeedna waxay noqdeen duduntii saasan geedkii ku noqonay geediyo dudun markii dambana run ahaantii arrimo jira oo taariikhiga soo dhacay lagu xidhiidhay in beesha kale ee aan walaalaanahay ay yiraahdeen walaal geedka noqono oo dudunta iska duwin waana ta keentay hadii jeer arrimaha taariikhda galay ee madaxweynihii labaad ee dalka ka soo taliyay ee in cigaal matalan markii uu lahaa war xadka dhaafiya wax la kala qaadayo dal bay ahayd haddii ay taageeraan nasta marka horta labada beelood beelina taasay ogtahay waa beeshan ka dhashay oo markasta waxay aaminsan yihiin laydin nasanay oo laydin dawladeynaya waxa la doonayaa in la dijiiro beelina waa beesha kalaana walaalaanahay oo inay yaabtigeed iyo adeerkeeda aanu nahay laakiin waxa la dhex yaalaa in ay tahay arinta iyadana ciladooda ay leeyihiin waxa weeye dawaa beesha 32 sano ee dalka Soomaaliland uu jiray ugu yaraan 20 sano ama 18 sano ku dhawaad ilaa xitaa intii in riyaalo in ciyaar ka dhintay iyaga loogu dara way kursiga dayagun baa hadda dadkeed ku leeyahay taasi iska arrin accidental marka 16 sano ama 18 sano oo beesha dalka haysatay oo beesha walaalahay oo kartidooda
iyo isku duubnaantooda ku gaadheeyay kama xidhin ku habsaday baa loo yaqaanaa qoladoodana waxaa loo yaqaanaa kuwan goobay marka labadaa beelood ee ku habsaday kuwan goobay walaala ah ayaa beelin waxa weeye maadaama 18 sano kursiga haysay qaybta tanaasulka iyo walaalnimada in la isu tanaasulaada had iyo jeer ay ilaaweenba oo had iyo jeer way naga badsadaan qoladoodana waxa weeye gaxajisuna maanta meel ay halkaa u dhaafaan ayayba yihiin runtii markaad eegto marka waxaad moodaa in shirka ila meerayso ay ku jirto waxaan se filaynaa insha allah kala tegi maayaan labada beelood inay noqon doonaan qaar wuxuu ku heshiiyaa waxaan guddida dee labada beelood dhexdhexaadinaysa ee salaadiinta iyo maayarada iyo cuqaasha iyo haddii beelkeeda ku leeyahay wasiirada oo runtii aan oran karo iminka way ka go'antay in halka nabad ka dhalato xilliga ay u jireen sida ay wadaan markaad eegto waxa la lahaa walabada beelood qodobada ay tixgeliyo waxba hadalka isku taaganay in badan beesha garxaji samirka iyo waa lagu majeertaa iyo dulqaadka oo maanta walaalaha iyo waxa tiradaan waran meesha lagu kala tigi maayo waa la wadalay waxa weeye waa la wadalay waa la wadagay ilmaad rayaalo mas'uuliyadda maanta dahabar yoonis laga dhaqaaqo qaata hadaatiin awal hadaatiin maanta ma qaato doon laga maqlo qaata yeeli waaya wixii kale aad ku soo go'aansan baa kala shaqeynaa anagu waa nabad ah waxaan filayaa dee qodobka kale halay aad ku soo go'aan doonto in noqon doonto warska wada fadhiya oo ama isu nast ama isu jiifsado deeska wada deganaad gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliya Cabdi Khaliif iscasilaadiisii iyo hadal jeedintii ka dambeysay ee uu sameeyay iyo buuxinta booska golaha wakiilada infraton lagu dhiso ama lagu bedelo sidee adiga kula muuqataa ray ahaan wali anigu waxaan jecelahay fahmiyo inaan had iyo jeer si dhexdhexaad ah isaga hadlo waxaan anigu had iyo jeer fahmiyo jecelahay inaan si dhexdhexaad ah u hadlo oo run ahaantii waxa weeye dee wixii jira ee qofka aan ka arka unaan ka hadlo horta ninka la yidhaahdo cabdirasaaq khaliif dee wuxuu ahaa ra'iisul baarlamaanka Soomaaliya muddo hore oo markii dagaalku u bilowday ah wuxuu sheegay inuusan isagu doonayn inuu noqdo sida hebelo wala socota inuu xuseeyo wuxuu sir cali kooriyaan oo indha noqon maayo taan macnaheedu waxay Soomaaliland ku soo noqon maayo oo ka quusta dee iscasilaadiina official waa kii dhawaan sameeyay anigu waxaan arkaa nin tolkii raacay waxaan arkaa nin markii uu hadlay hadal jeedintiisa markaan qiimeeyo aan waxna ka tagin afxumo ceebina ka tagin wixii uu doonayay xaqanayna wuu yiri ceeb badan oo afxumo badan oo ka tagtayna ma arkay qodobada uu ka hadlay waxa kamid ah waxa weeye haddaan ku soo qaado international community-ga sidii tolkii u taageereen buu taageeray ninka soo xiliyay taa waa laga filay wuxuu mahad celiyay in kastoo beeshiisa uu arkayay inay irbad ugu gelisay maalin cidda doonta ha noqotay taan ninka soo rogay waa laga filay waxa uu gubaabiyay dadkiisa oo wuxuu yiri waxa weeye maanta deegaanka weynu wada leenahay oo kala tagi mayno inteeda waan ku kalsoonaan intiina ku kalsoonaada hadal ceeba waxa weeye maaha inayada kala tago ninkii Soomaaliland uu ka tagay ha ku ciyaarsan deynta waxa kale meesha jirto dee uu yiri oo iska bari yeelay warwaa baa baan hayaa qolaba mid ha qaadato taasina macnaheedu waxay noqonaysaa in xatooyo iyo waxa weeye dabka dhiibay iska bari yeelay marka anigu waxaan u arkaa haddii beelkeeda ku leeyahay in ninkaasi waxa weeye uu tolkay raacay wixii kale la yiraahdaaba oo iskan hadal aan macna lahayn iyo maxay qoladeeda u noqon weyday booska golaha wakiilada waxa weeye haddii la siinayo haddii beelkeed ku leeyahay dhul bahante iyo haddii nin kale hartiya la siinayo haddii cid kale loo galanayaba dalku maanta wuxuu u baahan yahay qof tayale dalku maanta ma baahna qof la ilaahay farta taag cidaan ku maahan cay wuxuu u baahan yahay hadduu yaqonayo nin dhul bahanta oo adag oo sidii wax weeye ninka inuu ka tagay ninka laban garanayo run baan ku sheegay oo dadka u garanay karo hadal oran kara oo isaaq runta u kala sheegi kara oo aan qalbigiisa gelin warqoladana meesha ku habsatay waxa weeye dib boqortooyadii qolada kala duwan waana aragtay waxa weeye in badan oo kamid waxa weeye siyaasiyiinta waxa weeye dhulbahanti ama hartii halka jooga iyagoo iskaga miisaya waxa weeye beeraha kale haddii bidkeed ku leeyahay maanta haddii bidkeed kale xukunka haynin
oo markasta uu hiilinaya beesha ku kahaysa deetaan macnaheedu waxa weeye waa horgalnimo qolal daarood baa soo gabagabeysan dhulbaanto waxa waa horgal waxa weeye inaan fakirin oo wixii la yiraahdo oo hor caraar tawhay dagaalkii laascanood uu daba dheeraaday dagaalka laascanood maxaa xigi doona mase kula tahay waqti noocee ah inay soo noqon doonaan dhulbahante Somaliland oo ka mid noqon doonaan dagaal sokayo 5 bilood iyo 6 bilood iyo 4 bilood soconay waxa ma daba dheeraa dagaalku sokayo waxa weeye sanado badan uu socdo ilaahay inaga nabadgeliye marka ha iska socdo dagaalku maxaa ku xigi doona waxa ku xigi doona wixii ku xigi doona imka way socdaano qolnimanka dhulbaantay ACC iyo wixii gayaca ku qaataan maamulkooda way sameystaan waa kuwa hadii dadka galaaminayo waxa weeye labanka sameynaya hadii dadka dawladda federaalka iyo geeska Afrika ama qabiil iyo walaalnimo ha ku beer la xawsadeen ama waxa weeye siyaalo kale haw ordeene waxaan maqlaayay waxa weeye Mareykanka waa laga ballan qaaday marka waa niman waxa weeye inuu guddi 45 listood ee maamul u joog ah oo doonayeen inay waxoodii dhaqaajistaan marka waxa meesha yaalo oo dadku isweydiinayaan hadii jir waxa weeye dadku eegaan war dagaalkii gurma lagu kala guuleysanay qof fikir buu qabaa deemaan ragoo mid ciyaafkood ana waxaan qabaa markaynu 32 sano jirnay dawladahay aanu kaliya isla showro war dagaalka inaga imka wala inaga guuleystay dagaalka hawala inaga guuleystay mar hadii dawladnimada 3 sano jirtay ahayd oo niman mamaalika waxa weeye hadii beekeed ku leeyahay daraawiish oo degaraadi ay inay khilaabeen oo deeb reer ah oo dad xalaqaad sidoo kale maantana waxa weeye caalamkii waxa weeye inuu go'o fikro yihiin anu dasaasan u arkaa waxaan qabaa dagaalkan waxa weeye inuu naqaawiye iyagu dagaalku Somaliland maamulka Somaliland iyo horta waxa weeye cidii halka ka dagaalamaysa dhulbaantii cidii ay ku jiitaan buu dhaxmaray isaaq runtii u midoobay waxa weeye inta ku wada jira ama beel toos ugu jirta oo la dagaalka huuriyadu ha jirto ha joogto laakiin beel toos ugu jirta dagaalka toos baan ugu jirnaa walaal ugu maaray waxaan si dagaalkaas waxa yeelan doonaa inuu idoo qaawi ama waxa weeye hadii midka ku leeyahay Somaliland qaawi magaciisa loo saabixin doonaa inuu iska sugeyn hadii uu guuleysano waxa weeye ay murugalina taariikhdu waxay qortaa waxa weeye hadii jeer clipka ugu dambeeya ayaa aad u qortaa marka insha Allah way eegi doonaa dhulbaanta soo noqonayaan ma jiro anigu fikirkayga waxa weeye boqolkiiba 3 ayaa in odanka la dhulbaanta uu soo noqonaya saddexdaasina 20 sano iyo ka badan baan u qiyaas iyagoo ka soo maaray waaya dhulka kale laakiin waxa weeye dhulbaanta soo noqonaya maanta ninka sugaa waa nin Ismaaciilinaya iyo nin aqoon badan lahayn iyo nin de waxa weeye emotional ah inta badan waxa weeye de naftiisa la go'doonaya runta marka doonayso ka hadli maayo anigu nin sii socday nin soo socda dhulbaanta gobolada qoyi dadka digay kamid yihiin oo la digaan weligood maamulka ka dhamaan maayaan mid sii socday mid soo socdana laga waayi maayo laakiin taan ugu ma aqaan qalbiyada dadka shacabka ay dhulbaanta maanta ma hayno marka macna sameynayso sidii aan aniga markii hore macna igu sameeyay markii hore macna inay sameeyeen tuuraq baan joognaa waayo dadka halka maray baan ka mid ka ahaa waxa dalkiisa inta soo tuulo dhulbaanta soo keenay ka qabsanaysa ama waxa weeye hoosta waxa weeye aan dhufta ka tufaysa haddana ciidankan ka shaqeeyay waxa weeye garwan yiri jirna xigmada markaad eegto dad meelan haynin laakiin la tirmeel guriyeen dadina way baba marka dhulbaanta soo noqonaya anigu ma arko su'aal kale aan ku weydiinaya siyaasiyiinta Somaliland ereyada ay aad ka isticmaalaan ee bulshada ku soo celceliyaan door positive ama negative ama taban ama togan ma ku leeyihiin xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee hadda ay Somaliland ku jirto fahmiyo haayo dawlad kastaaba waxay u egtahay hoggaankeeda run marka doonayso haddaan gacan xumaana haddaan af xumaana gacan ma xumaata baalay hay xiriir baa ka dhaxeeya waxa weeye qaab hadalka ama sida ereyga loo xusho ee ninkaaga siyaasiga mas'uulka ummadda u dhaartay uu xusho iyo raadka ay ku yeelanayso bulshada erayo badan waxa weeye Somaliland burburiyay oo inuu iskaga celcelino oo inta badan uu siyaasigu sarbeeb ahaan dadka ugu soo tuuro oo iska suuqdiya oo erayo waxa weeye maanta runtii aynu ka tanaasulo baabiinada ay tahay ayaan anigu oo ku badan hadalkeena
وأمريكا سهل كذي عف وبديه كذا كتاب ذكر السياسي عف ذاك وبدر يعنصريته تصالح وحكمتها هذا السياسي السياسيين تم استعمال سحوي dadka guuray dhulma guuro kelmadda waxay ula jeedaan gobolada waqooyi bay dhulbahanti ka mid yihiin oo dhulku guuri maayo dhulku waligeed dhulka isugu ka yaala baa laga yaabaa in inta siyaasiga u jeedo iyo xumaan bay u jeedin laakiin kelmadda macnaheeda kale xambaartay waxay noqonaysaa isir safayn daddooni meeyay dhulkan doonina way noqonaysaa taasi waxa weeye dawlo oran kartid qofka mar hadduu ereyay macnihiisa jiro ma oran kartid macnaha uma jeedin inaad ku doodo mooyaane oo laga aqbalay mooyaane dawu ku yala waxa weeye nabarkii ku yala war kelmadda siyaasiga Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliland iyo aqoonyahanka Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliland war ereyga oo madariyay korga guura erey kale kor lagu guuray waxa weeye aan anigu ku arkay waxa weeye siyaasiyiinta waxa kamid ah ereyga loo yaqaan beesha dhexe macnaheedu waxa weeye wuxuu ku tusayay ninka siyaasiga inuu isaaq u jeedo isaaqna isku dan ma haday isaga is tulmay siyaasiguna wuxuu dhaartay ka isaaq iyo ka kaleba inuu dhex noqdo oo waxa weeye uu mas'uuliyo wasiiriye marka lagu leeyahay beesha dhexe inta badan waxa isticmaala siyaasi ama harti ah ama warsigel ha noqdo ama dhulbaantaan noqdo ama ciise ha noqdo waxaan leeyahay siyaasi harti ama ciise ama guud biirsiya wuxuu u jeedaa إنه بيل ساقة وهيلية بيل ساقة نكهيلية كلمة رسمي قواتا مركو كلية هي بيشينا الدحي ويصير كسومال لأن مركو كلية هي تاقي دي المهي ما يديك ما ماشي وعلي وحو هيلينا يا كسعد موسيقى ماشي حايستا وحونا كهيلينا يا كان معالك إيقر حجز مركو دوشو إسكاكا قبانا يا سبو ينسر بيبي وحولي ما هدا يساقتين يانو يديك القربانا وعالك هابا ماشي حايستا عبد الحكات كسور ديسا ثم تامي الله دورت وحكول لي مدحوين كحيلين كي بقى لها وحوي Somaliland هدا بيش دحتي وابن مدحوين كحيلين كي دلكه بيش دحيو شيغيا waa maxay isagu ma dhacay marka kelmaddaasi waa kelmad waxweeye inta badan aan dastuurkeena ku jirin suuqdina macnaha loo jeedana isaaq amaana maaha waa Somaliland dil waxay tusaysaa in markasta arinkeenu yahay qabyaalad in wasiirkeena fikirkiisu inta taagan yahay dad dhan oo waxa darkaysa qalin jibinayo hadabadigood galaarkooda kuna oo nin wasiir mas'uul waxa ka dhaxliyay hada beesha dhixatiin oo macnaheeduna ay ku soo ururayso in caalamku inoo arko wax miyaan inta ka talcin marka ay wali la taagan yihiin siyaasadooda meeray kale xushaan bigaray marka macnaheedu waxa weeye ereygaas waliba qolada mucaaradka ee isticmaasha waxa la iska daayo haddaad isticmaalaysaan walaalaheen way haystaane dadka u sheego de ka daayo waxa weeye dadka lugooyada oo ninka siyaasiga garxajise isagoo mucaalad kale waxa weeye hadaynu beesha dhexanahayo dadkaagi waxaad u sheegaysaa waraynu iska magaabada inuu iska miirsan walaaladeen baa meesha haysta hadda waxba doonay dadka fariiso erey kale muhiimka aan ku dari lahaa waxa weeye ereyga loo yaqaan hadii jeer Soomaaliyeed ereyga Soomaaliyeed macnaheedu waxa weeye qofkan xuquuq dalka kuma leh wixii la yeeli karo hala yeelo dastuurkeena waxba uma ogola maxkamadaha iyo dhamaan idaaradaha dawladdu la socda taa macnaheedu waxa weeye hadii boqolkiiba 40 ay Somaliland dadkeedu yihiin Soomaaliyeed oo siyaasigeenu ku qodbadeeyo isagoo isla xisbi mucaalada oo yar ku xuquuq seej ereygaas inta uu ka macna balaaday su'aasha maanta la weydiin karana waxa weeye waladii dadka ugu Soomaaliyeed kala bariyahay maxaa Soomaaliyeed ku diray yaa afku ugu haysa marka waxa weeye waa water under bridge baa la yiraahdaa waa siyaasi ay hoos marayaan habeena leh oo dadkiisa caay waftigii irar Soomaali Somaliland u yimi inay dhexdhexaadiyaan Somaliland iyo garaadada gobolka Sool dhexdhexaadintooda halkay ku dambeysay maxaad saad ka leedahay shirka la yiri irar Soomaali ayuu Hargeysa uga furmayaa xilliyada soo socda فمو هرتا سياسة Somaliland مبادئنا اللي لقى حول الشباب كتير اللي يرمي ميريسي بحي لقى بعض بعضه لقى Somaliland يلاته اتفضل واللي قبل شوبه صلادين تاسي وحبا وما يسوى عانورين وحنا بابيه وحوي دور كودي قاطي قرادة تجي دولة فدرال كي صلادين تصادرتي بوح بدن كصور ما يستي تاسي وحيلا تينا مانتا waxba laga sugay salaadiinta hadii bedka tkuuni hadii Hargeysa joogan hadii ka tageenba waxba ma gaarin
dabcan waxaana weeye Somaliland bay aanay isfahmin tan iriida aad sheegaysana wali adiyadu waa ideological waa mabaadi haddii ay wuxuu hayb tahay ummadaha ma inaan dooneen oo intaasoo bilyaneed ee Somaliland ka baxday nin hartiya ma inaan dooneen haddii wuxuu qabiil uu ku dhismayso ideologicalka waxa loo yaqaanaa waa waxa ummada ay ku dhisantahay ku horumarto maanta haddayna Somaliland labadeenu ka midaysanay Somaliland cidina difaaci mayso marka ideologicalka meesha yaalla waxa weeye waa la dir Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliyeed buu boqolkiiba 90 dadkiisu rumaysay ama koonfur joogo ama biyamaal hala baxo ama surre hala baxo ama garre hala baxo ama haddii beekeed ku leeyahay hala baxo maxaa la dhahay waxa weeye dirka kale 6 tuulo degmo oo waxa weeye majority-ga laga haysto ayay waxa weeye ka degaan gobolada haddii beekeed kilalka iyo waxa la halmaada dhammaantood maamul daaroodin bay dadkaas ku jiraan dir hadaad aragto maamul daarooda ma huwiye uu haysto inay goboladooda ku hoos jiraan waxayna u adeegaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ninka direed ee maanta Hargeysa ugu yimaada haddii hayb la leeyahay way isku nahayna dawlad la soo dhaweey haddii dawladda iska shaxaadaya iyo haddii bedekeed ku leeyahay dalka baranayana dawlad la soo dhaweey haddii muwaadin kala hayana dawlad la soo dhaweey haddii xasan guuleed uu adeegayay waxa leeyahay Umar madaxweynaha Djibouti uu adeegayana midnimadii buu wadaa marka haddii irirku ay rumaysan yihiin midnimada Soomaaliya ka Somaliland taagan la waan goosanay halkeebay ka heshiinayaan taama waa inaynu raacnaa hama tawaayna tooda waxa weeye haddii bedekeed ku leeyahay aynu ixtiraamnayo siyaasad guud mooyaane wax badan caanayn maayaan shirarka inoo socda shirarka dirku wax badan qaar caanaynaya maaha way mabaadihaan waynu kala duwanay hiilnaynu kuma tari karaa diinse laakiin la Djibouti baa laydama maamulaa laydka maamulaa waa meel waa arrin kale 32 sano ee hadda Somaliland ay jirtay dhacdooyinka u waaweyn ee ka dhacay ee aad xasuusato adoo soo koobaya mid iyo laba nooga sheeg dhacdooyinku way farbadan yihiin oo negative iyo positive way leeyihiin 32 sano waqti yar ma laakiin kullu ku waaweyn dadka Soomaalida ay ku hadaaqaan miisaangooni ilaa tojara haddaad maanta dadka weydiiso ay wax ka ogyihiin ee ugu waaweyn taariikhda kale inta negative iyo inta positive adaa kala xulanay وانا قيمين عادي سومالان قيمينتي ku soo bixi karta hadii negative ku batana Soomaaliland waxa uu dhinac janjeerada u socotay wiilkeed hadii positive ku batana alxamdulillah reeyasu anigu waxaan ka xasuustaa ugu waaweyn waxa uu isna dawladda siyaad bare riday iyo jabadii la socday iyo waxa uu ay fangareynaysa ama waxa uu ay alliances ka hayaan adigu waxa uu waa SNM oo taariikhda ku gashay jabhad waxa uu qaybta ugu muhiimsan ka qaadatay afgambiga dawladii Soomaaliya talabaad ee taariikhda gashay waa ku dhawaaqida guulaystaga Soomaaliland tasaddexaad ee taariikhda aad u dhex xushay waa dagaalkii loo bixiyay Maryaalonka ee bulshooyinka reer Soomaaliland ay isku wajeen ta afraad waa ereyga loo yaqaano waxa weeye jeeganta oo ah cudwi ka dhex samaysmay siyaasadeena وديس لدتكين أونا أريد كلمة ماشي هذه يجري وحوي مهم كوتشرا وحوي أريد لو يقارن نبضة وإن بدن كسر عالم الله يلقى شيء يوضح هذا الكيس التناسل ككلنا والديمقراطية وين بلونا إنك صار بلاسي إنك هوس العالم يبغى يناقصين وأنا هاي وحدة تمر عن هالكودي تاجن صدق على طارق كتبين وكله وين ناقص كلام وحوي حمالنا كلام صار نقول لا بدو واحد تاريخ ذكر درجة ciidamada kale ayaa iyaduna wax weey shay muhiim ah oo la kala Soomaaliland way gaadhay kuwaas inahaasi waa ereyada ugu waaweyn iyo kale la iska kaftamo wax weey isagoo aan imaka aan halkan waxba ka sheegin intaas oo ereyga kale isku fuuqsaday imaka sana taariikhda ku soo biiray hadda kooye ah ee wixii waxa weey dadka raaciyay
ومماليك تام اللي من كان له يقالوا هدي بيدك كله هي جرادة دجال كي جرادة يسوي مالي لا واسمه تاريخ ذكر ما يعيل طول هلا بشي هران كوكو شاي إنا هاسي وإريدا مرك الصو وريم على ياش هو وين التيتلا يسوي مال لا صومر واد ما صنت daawadayaal intaa waxaa ku dhan waraysigan gaarka ah ee aanu la yeelanay ugaas cabdiqaadir xaaji faarax xaaji cilmi waxaan idin leeyahay aniga waa fahmi kaysa xirsi isma dhaafno iyo nooli kulantee